ama gobolka awdal wax dhibi horta kama jiraan dhibaanay abuureyn maamulka joogaano abuureyn kama jiro waxaan la yaabanahay oo aad iyo aad anagu ka xisbiyaan la yaabanahay wixii xurriyatul qowlka loo oran jiray oo ka sii baxay faraha waanu cambaareynayna xariga dhalinyarada ku xiran wixii aaminsan yihiin maraha mid ku jirta dawladnimada maraha mid ku jirta insaaniyada maxaa loo xirayaa dhibtiisii gaarka ayada dul sheegtay inka reer buurama kama xuma xasuuqa loo geystay shucuubta waa nuqiraynaa war haddii inaan leeyahay aniga dhib ay soo gaadho institution ka tamanayo khaasatan barasaabka gobolka walaal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaan leeyahay Cabdiraxmaanow haddii burcaduuray maalinta burcaduuray aad loo xuso walaalka ku dhiman lahaa oo ay ahaan lahayd 5 February inanka 4 February aabihii dhintay isna ay aabihii dishay markuu yiri 4 February aabahay baa dishay inaad xidhan ma yahayn wasiirka arrimaha guduhu inuu xidhan ma yahayn meerka magaalada jooga inay xidhaan ma yahayn waxay ahayd inaad tiraahdo walaal khalad dhacay bay ahayd laakiinse khaladkii waqtiga dhacay maanta ba taagna inaad isaa ugu aqli celisaan bay waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland ee uu ka yahay meerka Buurama ee uu laba ka yahay barasaabka gobolka Awdal wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waayaan la isnacsiin dhalinyarada reer Buurama iyo dawladnimada Soomaaliland yaan la isnacsiin barasaab adaa ka marxaatiya intaad xukunto Buurama waad ogtahay reer Buurama inaanay Soomaaliland cunfi iyo cuqdad midna u hayn inaanay dhalinyaradeedu Soomaaliland nicbayna waad ogtahay kolka u horeysa horta dad baa dhintay dembi maaha dhalinyartaasi ma dambaabin wax ceebana ma ay samayn ela badan oo kale lagu dhintana waa jireen oo Soomaali oo dhan way isku wada dhimatay waqtiga nabadeyn baa ka dambaysay burcal lagu qabtay wixii hore aan iska dhaafno dawlad dhisano wixii lagu heshiiyay waxaas booha dawladii tii Hargeysa tii la yimid Buurama eed ogeydeen bay ahayd ka dabadeed waxaan leeyahay barasaabka iyo maayarka iyo cidii kale ay khusayso wiilasha hal la soo daayo gacantana hal la iga soo saaro